بسم الله الرحمن الرحيم وحيالها اللوغة باهن يهي أما تلابوينك اللوغة باهن يهي قفك انترفيوغا قليا يشقو قليا وحال إله دا سيرونتا بقول كيبا سيديتن إنك بضن أي قفك مركا أو شقادة لوغو يارو انترفيوغا سيدا أو قلو أما سيدا أو كوندكت كريا مركاس ayaa ay ku xiran tahay shaqada inuu helo in kale inuu si wanaagsan oo shaqo inuu tagayo u labisto malihi exaggeration samee ama xadka dhaafi laakiin qof shaqo u diyaar garoobay waa inaad noqotaa oo shaqada dharkaaga inta ugu muhiimsan ee ugu wanaagsan oo nadiifa ee qofkani qof shaqo u soo diyaar garoobay laga fahmayo inaad gashatid tiyo ay taasina ku xiran tahay marba halka interviewga sida lagu yeeray iyo shaqada positionka aad qabanaysid waxa misaal nooc hadii lagu yeeray training coach inaad suud isku sii taagta iyo reebaheedii waxba loogama baahna laakiin dharkii riyaada inaad gashatid in aad shaqadii qof riyaadiya u muuqatid aad iyo aad ayay muhiim u tahay qofka impression ayay siinaysaa gaaladuna waxay tiraahdaa the first impression is the last impression qofka impressionka marka ugu horeysa laga qaataa waa ka dambe ee maskaxda ku sii raaga marka ugu horeysa hadii lagu arko qof dharkii ku soo seexday ku yimid qof aan u soo diyaar garoobin interviewgan waxa weeyaan markaba dadkuna waa iska psychological maskaxda ayaa lagu qabanayaa waxa weeyaan in aad shaqada ku guuleysato aad bay u adkaanaysaa sababta aynu isweydiinaan hadii xagga dresska aan ku yar adkeeyo waxa weeyaan hadii maanta lagu leeyahay madaxweynaha aad u tagaysaa markaba dhar baad isku sii taagaysaayo waad si xidhxidhaysaayo sababta haddaad isweydiiso dharku confidence-ka waxa la yiraahdo iyo kalsoonida qofka ayuu qayb weyn ka qaataa marka adiga laftaada ayaa hadii aad si wanaagsan u labisan tahay oo interviewgan dadkan aad u tagtid adiga oo si wanaagsan u labisan confidence-kaagu iyo jawaabaha aad bixinaysaaba way aad iyo aad bay u wanaagsanaanayaan laakiin waxyaalaha aynu iska ilaalino marka interview lagu yeero dad baa intay cadarka soo qaataan isii buufiyo oo iska sii qofkan miyaad ogtahay inuu allergy leeyahay in uu xasaasiyad ka leeyahay miyaad ogtahay marka waxyaalahaas waa inaynu iska ilaalino especially dumarka ay ku badan tahay oo waxa weeyaan interviewga marka lagu yeedhaba waxay sooranaysaa cadar isku sii badi makiyaajka isku sii badi xadka lama dhaafiyo makiyaajka isdhaaf waxa weeyaan makiyaajka isku badinaysaa waa cadarka isku badinaysaa at the same time dad ayaa marka interviewga lagu yeero waxa laga yaabaa waxyaalo badan iska jira laakiin waa logical waa waxyaalo dhaca in basalo kale soo cunaya toono kale soo cunaya waxyaalaha mind blocking sameeya maskaxda qofka ka xidha inuu interviewga si wanaagsan dadkan ka qaadaya markaba ka xidhaan weeyaan ilaahu ninkan yaayna dhaafiyadaas bay ku jirayaanba inta aad meesha fadhiyay marka dambana waxa lagu oranaa okay we will call you ama waan kula soo hadli doonaa ay orad iska tag marka waxyaalaha waa inaad iska ilaalisaa oo waqtigaaga qof bankti wala waxyaalo badan tilmaamo badan bay ay saameynaysaa oo laga arag dhaxarkaya hadii waqtiga interview ka hor aad timaadid adiga laftaada ay ku wanaagsan tahay qofku meesha uu ka soo habsaamo isagoo habsaamay haduu yimaado ordaya waxa weeyaan jawaabaha uu bixinayaa ma wanaagsanaanayaan marka always waxaad ahaataa qof bankti wala qof waqtiga yimaada qof waqtiga ka sii hormariya waa inaad noqotaa taas ayaa lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay oo kale qofku marka uu interviewga galayo inuu dad baaba marka meesha soo galaan ilaa anu hebel baan interview la lahaayay baneeyo attitude kula hadla qofka receptionist-ka qof kasta oo meesha jooga
ogow interviewga maalinta marka interviewga lagu yeelay shirkadda soo gashid ama organization ka soo gashid interview baad ku jirtaa dadka badankiisu marka interviewga ka qaado oo qofka uu ka qaado ayuu ha hebel baan maanta ka qaadnay ka waran oo soo nin wanaagsan buu u eega soo maaha waliba especially dadkeena oral society-ga aad bay ugu badan tahay tion report kaba la weydiin qofka meesha fadhiya ee receptionist-ka ayuu oranaya wallahi ninkaasi waxa weeyaan waa nin dabeecad xun oo si xun buu ila dhaqmay ninkaas wax la inoo keenaba maaha marka always waxaad ogaataa inaad nice noqotid si wanaagsan u bariidisid maanta waan insha Allah maanta in yar baan idinla joogi doona interview baan hebel la lahaa interview baa la igu yeedhay si qof nice ah oo salaanta si wanaagsan u salaamo oo bashaasha waa inaad noqotaa weliga hays orannuun director-kii baan la lahaayo maxayo noo baneeyooda waxa weeyaan waxyaalaha dhibaatooyinka badan ee qofka interviewgaaga dhaawacaya ay ka mid tahay waxa weeyaan marka interview galaysid waxa lagaaga baahan yahay habeenka interviewga in aad shaqadaada qabsatid oo homework-ka lagu diray interview bari leedahay marka lagu yiraahdo that means indirectly ayaa lagu diray homework-kaaga waxa weeyaan in aad wax aad shirkadan ama organization-kan ama meeshan aad u galaysid aad shaqadeeda soo ogaato dadka waa in aad markaba qancisaa oo shirkad oo maxad ka taqaanaa marka waxyaalaha ku jira waxa weeyaan shirkadeeda maxad ka taqaanaa ama organization-kayga maxad ka taqaanaa si wanaagsan haddaad u sharaxdid oo arintaas aad qabataan saas aad qabataan waxaan doonayaa inaan khibrad helo inaan kordhiyo aqoontayda si wanaagsan baan waxaan miiska keenayaa aad si wanaagsan adigu isu iibisid waad is iibinaysaa ogow interviewga si wanaagsan waa inaad isu iibisaa oo waxa oo dhan shirkadda waxay qabato iyo taariikhdeeda waxa ay ahayd iyo wadanka haday NGO aad u galaysid waqtiga Somaliland ama international organization aad u galaysid waqtiga wadanka soo degtay waqtiga ayaan ninkii bilaabay sida uu bilaabantay waxa soo dhan homework-keeda waa inaad qabataa habeenka laakiin hadii subaxuna soo baraarugtido maxaan ka shaqeynaa meel ka shaqeysa humanitarian-ka tiraahdiid waxaad qabataan wallahi computerada soo saartaan oo computeradina aad bay wanaagsan yihiin waxa weeyaan okay markaba waxa weeyaan interviewga waa hoosta laga calaamadinaya waxa la oranayaa kanina dhaafiya marka waa inaad homework-ka ogaataa waxyaalaha talaabooyinka lagaga baahan yahay muhiimka waxa kamid ah in aad qof organized noqoto organized maxaan ka wadaa waxa weeyaan mar inay shahaadadahaaga aad iska soo qaadatid ay meel ku yaalaan malafkaaga aad organized noqotid CV-gaaga inaad wadatid shandad inaad soo qaadatid qalin iyo note inaad soo qaadatid oo meelo dhadhow ku yaalaan waxa soo dhan waa waxyaalaha shaqada kugu caawinaya ay ka mid tahay reference-ka waa lagu weydiin karaa inaad reference-kaaga iska soo wadatid inaad qayb dhigatid in aad koobiyadaas oo dhan aad isleedahay waa lagu weydiin karaa inaad wadatid marka waxa wanaagsan inaad shandad soo qaadatid waxaasi kugu organization yihiin organization-ka waxaad arkaysaa badanka shaqooyinka meelaha dadka shaqooyinka deedeed markaba waxaad arkaysaa organizational skills inuu leeyahay waa maxay organizational skills qof nidaamsan oo hay'adeedii waxeedii nidaamin kara waa inaad noqotaa marka waa waxyaalaha lagaaga baahan yahay ee lagu eegayo ogow imtixaan baad ku jirtaa inta aad mas'ano saacaha ama saacada meesha aad fadhidid imtixaan baad ku jirtaa marka waa in aad si wanaagsan isu organize garayso ayaa lagaaga baahan yahay waxyaalaha lagaaga baahan yahay muhiimka ah waxa kamid ah in aadan marka interview ku jirto aanad adigu isku mashquulin waxa weeyaan ama waxyaalaha dilayna waxa kamid ah waxa laga yaabaa dad badan inay qoslaanay sankaaga inaad ku mashquushid inaad ku mashquul farta sankaaga aad ku mashquushid weeyaan in aad qof adigu tii su'aasha lagu weydiinayo qof maqan aad noqotid oo interviewga yes aad soo toostid inaad tirahdid marba adigu waxa weeyaan waxyaalahan ku leeyahay hore u kaalay inaad qof interviewga adigu ku jira aad tirahdid xamaamka ma tagi karaa ma soo noqon karaa adigu inaadan distraction samaynin ayaa lagaaga baahan yahay
ama timaha ku mashquul ama xijaabka ku mashquul ama qof waa confidence ka waxyaalaha tilmaamaya ka mid tahay hadii interview aad hoos eegtido qofka waa inaad eye contact la yeelato oo toos u eegta oo si enthusiastic uga jawaabta qof firfircoon waa inaad noqotaa oo tirahdid wixii su'aashii inaad si wanaagsan intaad u dhageysatid oo active listening samaysid aad intaad u dhageysato inagana listeningka inuu qofku dhageysto aad waxyaalaha dhibaatooyinka inaga haysta ay ka mid tahay waxa laga yaabaa in uu qofkii wixii ba dhageysan wixii la weydiin wax kale uu ka jawaabo marka waxa muhiim ah inaad si wanaagsan u dhageysato inaad qof enthusiastic noqotid oo jawaabtii aad markaad bixinaysid aad si cilmiyeysan u sharaxdid si isku kalsoon oo aanad hoosta eegin eye contact inaad samaysid ayaa muhiim ah waxyaalaha interviewga marka lagu weydiinayo waa in aad smart noqotaa oo aad iska ilaalisaa weaknesskaaga noo sheeg baa lagu leeyahay weaknesskaaga waxa weeyaan maaha qofku ma doonayo inaad daciifto haddaad waan soo habsaamaa waxa weeyaan habsankaygu badan yahay dhibaatadeedu way badan tahay dadka waanu islaynaa de waxa weeyaan already adaba wax hoosta laga calaamadinaya laakiin si diplomatic waa inaad waxa la eegaya mowqifka adiga lagu geliyay sida uga bixi lahayd waxa weeyaan si diplomacy inaad uga baxdid inaad tireed ma wallahi de horta markan anigu shaqo qabanayo shaqada waxaan jecelahay inaan si wanaagsan u qabto oo aan gaadho gunta arintaas marka hadda monitoring and evaluation aan samaynayo waxa laga yaabaa inaan su'aal following aan dadka yar weydiiyo oo si baaro oo si eego dadkuna dad qaar baa u arka taasi inay weakness tahay oo in aan qof aad iyo aad dadka u dabagala aan ahay marka waxyaalaha diplomatic waa inaad saa uga baxdo weeyaan ayaa loo baahan yahay laakiin inaad adigu sharaxdid oo aad caabahaagii oo dhan sharaxdid looma baahna waxa loo baahan interviewga inaad adigu wax awoodahaaga iyo quwaddaada iyo waxyaalaha aad ku wanaagsan tahay inaad soo bandhigto waad iibinaysaa baan ku mar kasta maskaxda ku hay inaad iibinaysid waxa weeyaan in aad u dhageysatid oo qof active listening aad noqotid oo listener wanaagsan aad noqotid oo dhegta u raadidid oo qofka marka uu jawaabaysid eegtid oo xataa waxyaalo badan baa reaction kaaga soo baxaya inuu qofku jawaabtaada yar diidan yahay in kale ayaad ka arkaysaa direct questionska wixii lagu weydiinaa waa inaad ka jawaabto ayaa muhiim ah waxa kale oo iyadana muhiim ah in aad homeworkaaga aan markan ku sheegayaan kula homework aad soo diyaarsanaysaa waxa inaad following questions wax la yiraahdo inaad soo diyaarsatid oo marka interviewga la dhameeyo badanka waxa la yiraahdaa maxaad weydiinaysaa anaga su'aal miyaad noo haysaa su'aashaada waa inayna noqon oo kale imsaad siinaysan waa waxyaalaha sensitive-ka markaba qofku waxa la arkayaa inuu yahay money oriented waa dhibaatooyinka dadka oo keena waa in ay noqotaa waxa following questions-kaagu okay مثلا hadii la hire gareeyo shaqada sidaas iyo saasaan u qabanayaa marka qofkan aad doonaysan inaad hire gareysaan ma gobolada wadanka oo dhan baad uga baahantiin wax broad picture siinaya oo shaqadaadii si balaadhinaya ku saabsan waa inuu noqdaa shaqada qofka aad saas iyo saa u doonaysaan waa inaad marka aad soo diyaarsato ayaa muhiima lastly waxaan kaga baxayaa iyadana in aad badanka waxa qofku waxa laga yaabaa qof dadkan interviewga qaadaya inay ka qaadaan 10 ka qaadaan in ka badan ka qaadaan marka inaad ku reebtid saameyn maskaxdiisa qofka isku day inaad tirahdid marka ugu horeysid salaamisid si wad active u salaamisid enthusiastic u salaamisid in aad tirahdid oo business card kiina siin karaan business card marka dambana aad tirahdid aad weydiisid tirahdid hadii su'aal aan ma soo weydiin karaa okay na soo weydii marka always waxaad inaad su'aal oo aad email u qortid aad ugu mahadnaqaysid taankii inaad interviewga igu yaadeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah waxaan idinka dhagay filaya I'm looking forward to hearing from you in the near future marka waa inaad taahdo waxaan doonayaa inaan idinka dhageysto inaan idinka maqlo ayaan rajaynayaa waqtiga soo socda hadii Ilaahay yiraahdo marka that means
ad experience kaaga iyo xaga tiraadid shaqadaana hadii la ii qaato experience badan baan ayaan u leeyahay qualification keegu way wanaagsan yihiin aad baan shaqada u qaban karaa marka si aad saameyn ugu reebtid waa inaad isku daydaa oo emailka u dir insha Allah intaas topicyada hadii iyo talaabooyinka hadii aynu qaadno waxaan u maleynayaa insha Allah inaynu interviewga ku guuleysan doono shaqooyinka aynu galno. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.